ورحمة الله وبركاته دمان ومد Soomaaliyeed meel walbo joogaan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkan kasoo gudbinaynaa dhacdo cajiib ah oo ka dhacday dalka Faransa. gabar ayaa la waayay 25 sano ka hor. reerkeeda waxay dacwad isu gudbiyeen saldhigga ku yaalo magaalada Paris ee dalka Faransa. waxay dhaheen gabadheena ayaa naga maqan, waxaan doonaynaa inaad noo soo baartaan, waxaan doonaynaa inaad noo soo gudbisaan meeshay ku dambayso. ugu dambeyn askari way shaqo galeen, waxay dhaheen anaga ayaa idin soo baarayna gabadhiina meeshay ku dambayso naga warsuga. run ahaantii in badan ay baarayeen, laakiin nasiib darro ay ku guuldareyseen in ay soo saaraan gabadhaas meel ay ku dambaysay sal iraad meel ay dhigtay. dadkeeda waxay sheegeen in gabadha sal iraad meel ay dhigtay ay waayeen. ugu dambeyn gabadha waxaa lagu daray liiska dadka nolol iyo geeri midna aan lagu arag oo la waayay. kiisaska lagu guuldareystay ayaa lagu daray ugu dambeyn gabadhii. waxaa dhacday muddo dheer kadib, ilaa 25 sano kadib ayaa waxaa warqad loo soo diray saldhigga. aan la garanayn, aan ciwaanna ku qornayn, qof magaciisana aan ku qornayn. warqadaas idin muuqata ayaa saldhigga loo soo diray ee magaalada Paris ku yaala ee ciidamada booliska Faransiiska ayaa loo soo diray. runtii waxay la yaabeen warqadaas ereyada qornaa. runtii magacna kuma qorneen, cidda soo dirtayna kuma qorneen, wax ciwaana ku qornaa oo raacna. laakiin hadal cajiib ah ayaa qornaa oo ay la yaabeen askari oo dhan. waxay la noqotay arrin mucjiso ah oo ay la yaabaan, ay is wareystaan in badan si ay ugu salgaaraan ama ay ugu gungaaraan ay ogaadaan arrintan meeshay ka socotay ee soo diray. runtii warqadii markii la keenay saldhigga loo soo diray, bokoska saldhigga lagu soo diray, bokoskii waa laga soo bixiyaa isbuucyo ama bilal kadib ayaa waraaqa loo soo diro. waraaqa dacwada waxay imaadaan laba nooc, midna toos ayaa loo imaadaa, midna dacwada bokas ayaa loogu soo diraa saldhigga. marka bokoskii saldhigga ayaa haleysnaa ama xilad ku jirtay, marka bokoska caadiga ee warqada caadiga loogu soo diray ayaa loo soo dhigay. waxaa loogu soo qoray erey ay la yaabaan, wuxuu ahaa gabadhii 25 sano hore ka hor la waayay, arrinteeda dadkaas sir ayaa u qarsan, gurigoodana dib ah loo baaro. runtii ciddii warqada soo qortay lama ogeyn, askarta way ku degdegi weysay arrintaas isla markii inay qaataan oo ay gabadha la aadaan reerkeeda. way suurageli weysay, in badan ay su'aalo fara badan isweydiiyeen, laakiin ugu dambeyn waxaa usoo baxday in gabadhaas ay reerkeeda baaritaan guryo ku sameeyaan arrinta loo ogaado. waayo muddo 25 sano iyadoo arrintan kasoo wareegtay, tan warqad inay reerka xaggooda ka timaado la dhahayo gabadhaas 25 sano ka hor la waayay, inaad reerkeeda dib u baartaan, gurigaas sir badan ayaa ku qartay. ay la noqotay arrin mucjiso ah. runtii askarta way soo baxeen, guriga ay imaadeen, gurigii ay sal iyo baar u baareen, dhinac walba ay ka baareen, wax way ka waayeen. gurigii wuxuu noqday guri aan waxba dhex oolin, runtii hareerihiis iyo dhinacyadiis kalena iskuba mashquuleen. albaabkii ay kasoo baxeen ayay dib ugu noqdeen. runtii reerka, khaasatan hooyada gabadha, shaka ayaa galay. waxay ogaatay arrinta sirta guriga ku duugan in qofkuna uu gudbinayo oo guriga ka tirsan. waayo sirtaas waxay ogaan karay iska dhaadhicisay qof oo reerka ka tirsan oo keliya sirta reerka, sidaas ay maskaxdeeda ka dhex buuxisay. ugu dambeyn reerkii mar labaad ayaa warqad loo soo diray booliskii. waxaa lagu dhahay gurigaas baaritaan ku sameeya, ciwaanna laguma soo qoran sidii hore oo kale. baaritaan ku sameeya, sir weyn ayaa ku qarsan. gabadhii 25 sano ka hor la waayayna sir badan ayay ku duugan. ahaantii gurigii ay mar labaad kusoo laabteen. markaan waxay sameeyeen, ciidamada way soo badsadeen guriga hareerihiisa oo dhanna waxay ka qabteen isku weer si aan cidna ugu bixin, cidna u soo gelin. mar waxay u qaateen qof reerka ka tirsan inuu ku ciyaaro ama uu mashquulinayo booliska. waayo waxaa jiraan dad badan oo ay ku baxdo ama ka hela inay dadka ku cayaaraan. marka waxaa dhacday booliskii guriga oo dhan hareere ay kan ugu dambeysay. waxaa dhacday guriga oo dhan way wada baareen, balse waxay heleen markaan nasiib wanaag albaab guriga xagga dambe kaga yaalo oo xiran oo falan ayay arkeen. albaabkii ayay jebiyeen, waxaa kaga soo baxay albaab. runtii waxaa kaga soo baxay arrin mucjiso ah oo cid kastoo aan filayn oo aad iyo aad uga yaabisay. waa maxay arrintaas? guriga waxay ka dhex heleen ee qufulnaa gabadhii 25 sano ka hor nolol iyo geeri lagu waayay, oo iyagana ay ka quusteen oo reerkana dacwad ay kasoo gudbinayeen iyadoo 50 jir ah. askariga ugu horeysa soo gala ayaa moobilkiisa sawirkaas kaga qaaday. adiga marka waxaan la yaabay, aniga qisada markaan soo qaadanayo waxaan ola yaabay, hooyo waa hooyo aad iyo aad ayaa loogu baahan inay naxariis badnaato. gabadheed inay 25 sano iyadoo nafta ku jirto, xayaatada ku jirto nool, iftiinka inay ka qariso, maxay ka damacsaneed, maxay ka maaganeed, maxayna irdoonaysa, maxayna ku kalifay gabadheed inay xabsi guri ay geliso oo meesha cunta ay ku siiso oo 25 sano ay meesha ku hayso. runtii waxay noqotay arrin la yaab leh. qof iyada 25 sano kadib saa ay noqoto, hooyada meeqay la jiri kartaa intayna la ekaan. runtii waxaa dhacday gabadhii markii hooyada la wareystay iyadoo waayela gabowday, waxaa la gabadhaan xabsigan dheer aad u gelisay oo dhibaatadan mustaqbalkeeda u ka ciyaartay. waxay ku jawaabtay arrin mucjiso oo la yaab leh. gabadheeda aniga waan jeclahay, waxayna saaxiib la noqotay wiil aanan qanacsaneyn. waxaan ka kari waayay in ay ka harto ama waxaan ku dhahay ninkaan isaga har, xiriirkiisa jar, balse wuxuu igu tiri ninkaan aniga waan jeclahay. anigana maalin maalmaha ka mid ayaan kaniin raashin ugu daray, waayo gabadheedu waxay ahayd gabar xoog badan oo jir ahaan u dhisan. anigana ma doonayn arrinta inaan meesha ku xareynayo cid ogaato ilaa reerka gudihiisa
xanuunaysa inay ogaadaan ma rabin marka waxaa dhacday gabadheed inaan raashinka kaniin ugu daray iyadoo sakhraansan ee qolkaas geliyey ugu dambeynna guriga cid aan aniga ahayn oo gurigaas ka ogaad gabadha ma jirin qayladeeda meel aan laga maqlin qol si qaas aan u dhisay ayuu ahaa oo qof walba si kasta u qayli aan dibadda usoo gudbinayn qayladiisa iyadaan ugu talgalay runtii sidaas aan xaaladda u sameeyey sidaa la socda aniga gabadheeda aniga ay 25 sano mustaqbalkiisa runtii islaantii waayeesheed waxaa lagu xukumay xabsi daa'im nasiib dara laakiin 15 cisho kadib ay dhimatay marka waxaan la yaabaa qisadan cajiibka ah ee ka dambaysa gabadhan inay wiil xiriir la samayso ugu dambeyn xiriirkaas dartiisa ay samaysay darteeda inay 25 sano waqtigeeda uu ku lumo runtii qisooyinka qaarkood waxay noqonayaan qisooyin cajiib ah qisadan waxay noqotay qiso dadka faransiiska iyo caalamka oo dhan la yaabaan ay mucjiso u arkaan hooyo naxariis lagu garanayo oo naxariis lagu yaqaanay in ay sidaan oo dhan naxariis daradan oo dhan samaynayso waxay noqotay arrin cajiib ah oo dunida ku cusub waayo mar walba hooyada waxa ay ku tirsan tahay ama lagu tiriyaa in ay tahay aaba tahayba oo tiris oo keliya ahayd inay mar walba dunida inta ama shakhsiyaad ka saaran qofka ugu naxariista badan oo ilaahay soo abuuray markii dunida aan bini aadanka la dhaho marka hooyo naxariisteeda aan ognahay heerka ay gaarsan tahay inay gabadheeda intaasoo sano ay waqtigeeda saa ku dhaafiso iyadoo gabowday oo dib loo helo runtii haqasiisbana ma soo daaho ama soo degdego waa kii soo daahira hadii gabadhaas masaakiinta ah ha noqoto gaal ama ha noqoto muslim laakiin taymka ka dhacay taym ay caruur fara badan ku dhali karto haddii ilaahay u qoray laakiin iyada noloshaas inay marto wax qoran bay ahayd laakiin sababta waxaa iska leed hooyadeeda iyada dhashay oo bilaash naxariis ku noqoto marka waxaad ogaanaysaa dunida wax walba kugu dhacay inay yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu